waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alla is dhegeysto xildhibaan. Alla is dhegeysto. xildhibaanada sharafta leh, maalin dhoweyd waxaan hortiina ka sheegay in aniga shakhsiyan Cabdirasaaq Cabdullaahi Macallin lagu xadgudbay xasaanadeydii oo lagu hanjabay dil. waxaana idii sheegay oo kale inaan maalinka Isniinta aan idinla soo wadaagi doono warbixin tafatiran oo qodobeysan sharciyad ku qotonto kadibna shaqadiina ka qabsataan. waxaan ka wada hadalnay oo aan ka fariisanay guddoonka waqti isla qaadanay anigoo idii cadeynaya in sharciyadii dambigii dhacay meeshuu ka dhacay wax walba aan hayno oo qodobeysan yihiin ayaan waxaan isla qaadanay guddoonka inaan dib u yara dhigno ilaa iyo kalfadhiyada soo socda. marka waxaan jeclaan lahaa inaad naga aqbashaan intaas ayadana waana mahadsantihiin. midda kale waxaan rabaa inaan ka tacsiyadeeyo dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday hubkii lagu soo galay sida qaabka darneyd oo aad moodo in dadka la jaha wareeriyay la ogeena meeshuu ka yimid iyo meeshuu ku socday. dadkii ku geeriyooday waa ka tacsiyadeynaynaa. inta noolna waxaan leenahay ilaahay cimrigiina idin dheereeyo. runtii laakiin waxa meeshaas ka dhacay wax la fahmi waayo ma aha. hubka every intelligence report oo la fiiriyey ama la akhriyey waxay conclude garaysay inuusan dhaafin 3 kilomitir oo annaga hadda aan ku jirno. hubkaas ma dhaafo 3 kilomitir oo annaga ku jirno. ayagaa lahaa abaabulkeeda lahaa ayagaa soo gashto. waxaase nasiib darraa dowlad ayadii isqiyaanayso oo labadeeda jeeb intay kan wax ka soo bixis kan gelinayso haddana ayadii asdaba marinayso. sidee ku dhici kartaa dowlad sharciyad leh jirta oo Soomaaliya la yiraahdo cunaqabatiinta hubka laga qaaday siday rabto wax sharci ku keensan karta dekedaas kala soo degi karta dowlad hub samaysa la diil gareyn karta consignment ku soo qaadan karta xitaa lacag laga rabin inay hormariso tartiib isaga bixiso in dowladii cadawga aan ahayn dhibka isu qabnay dagaal naga dhaxeeyo lacag loo geeyo hubkeediina la soo qaato annaga isku layno. aaday nasiib darro u tahay wax dadka Soomaaliyeed u qalmana ma aha. waana ognahay cidda ka dambeysay iyo dadka faraha kula jirana waa la ogyahay. maalinkeedaana bannaanka la keeni doonaa. laakiin waxaan ka digaynaa oo mar dambe aan ka digaynaa ciidamada la qaaday ee la kor dejiyay dadkaas Soomaaliyeed ee caabud waaq degan inaan ciidan Soomaaliyeed loo adeegsan inaan dadka canshuurahooda ciidanka lagu bixiyo aan lagu adeegsan. hub la qaatay oo jid laga helay oo la bilaqaystay oo meel uu jiro la aqoon in magaaladii la kor degan yahay oo leeyahay ilaa soo saara hubkii waa xaraam waay wax la dhageysan karana ma. ha laga soo celiyo ciidankaas ha la keeno goobahoodii kadibna dadkaas inay dalkana ku ilaaliyaan ayagana isku ilaaliyaan hubka ay hayaan. maalinkii loo baahdo dowlad xoog leh ay dhalatana hubkooda sida Soomaaliya oo kale Soomaaliyada kaloo dhiman dhaqaale loogu bedelo ama si farsamo looga soo qaado ha la yeelo. laakiin xoog in la isticmaalo raalli kama nihin mana aqbalayno. annagaana shacabkii baarlamaanka dadku u hadlaya mana aqbalayno. taas uga baxaya. dowladda jirta dowladaha waxay leeyihiin different layers. madaale annaga layerskeena kuma jiro. madaale ayaan dhihina ninka daalan kuma jiro annaga layerkeena. ninkaas waxaa laga rabaa inuu ka hadlo canshuuraha uu dadka masaakiinta uu dul dhigay ee gobolka Banaadir oo sharci darrada. waxaa laga rabaa inuu ka hadlo dhulka uu maalin walba ka bilaqaysanayo shacbiyadii iyo dadkii lahaa oo asaga qaadanayay iyo dad saaxiibo ah. waxaa laga rabaa inuu ka hadlo dhiiqada iyo sanitation xumada ka jirta wadooyinka iyo dalka. waxaa laga rabaa inuu ka hadlo bajaajyadii la joojiyay 2 sano ka hor uu maalin walba soo geliyo oo hadda magaaladii meel la marin lahayd. ma ahayn inuu xildhibaano aysan isku dabaqad ku jirin oo ka shaqeynaya dalkan iyo horumarkiisa inuu halkaas intuu istaago uu soo caayo. madaala nagama qabato. laakiin maanta waxaan qirayaa aan u sheegayaa dadka degan gobolka Banaadir waxay u baahan tahay nin dhalinyar aqoon-yahana fahamsan wacyiga jira iyo Muqdisho meesha loo wado iyo meesha ay aadi doonto. ma u baahna ninkan daalan
oo asaga laftigiisa ambo 3 saacadood soo shaqo tagin maalinkii ma aha in ninkaas uu gobolka sii joogo muqdisho wake up ninkaana meesha hala dhaafiyo dhalinyaro aqoon-yahan oo dareensan wacyiga jira ee dalka meesha u socdo hala keeno taas uga baxaya waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo May 15keedii 2022 xildhibaanada sharafta leh hool anagoo ku wada jirna ayaa waxaan soo hor istaagay 40 qofood oo musharaxiin oo shaqo raadisa oo raba dalkan inay hogaamiyaan qaar bilyaneer iyo qaar milyaneer iyo qaar aqli iyo fikir wada isugu jireen intii oo dhan waxaan ka dooranay madaxweyne xasan sheekh aniga shakhsiyan waxaan ku doortay experience iyo khibrad iyo hoggaan uu lahaa 4 sano dalka soo hogaamiyay dadkana ay ka dhex guuxaysay inaan 4 sano aysan ku filnayn inaysan 4 sano ku filnayn dalka idinka raaliya xildhibaanada ee fadlan xildhibaanku ha dhameystay wax yar aniga waxaan aaminsanahay inaysan 4 sano ku filnayn oo la siiyo qofka 4 kale si uu dalka uu isugu haayo una fahmo waxa madaxweynenimada ay tahay hal hayskiisii waxaa ka mid ahaa qabiir ninkeeda dhameystira maanta waa ognaa qabiir ninkeeda dhameystira waxay tahay qof kasto annaga naga mid ah waa dareensiya inteena adduunka joogta maahan intii qabriyada ku jirta xitaa waa dareensiyin qabiir ninkeeda dhameystira waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh annaga sharciga iyo dalka u sarreeyna annaga nala ka rabaa inaan dalkan jihayno cid allaale iyo ciddii ku xadgudbaysa dalkan in laga qabto madaxweynaha noqdo prime minister ha noqdo shaqadan oo iga dambeeyana ha noqdee annagay naga go'daa inaan ka qabanno oo dalkan jihayno waxaan rabaa marka oon ku soo gabagabaynayaa annaga inuu ilaahay na tuso awoodda aan leenahay waa nala handadaa waa naloo hanjabaa wax kastaa la samaynaa ilaaha wax dila qofku ilaahay dilaa dhimanayo cid kale oo wax ku gaarsiin karta wallahi nuusi jirin aan ka shaqayno dalkan sidii horumar u gaari lahaa looga qaban lahaa cadowgan shabaab ee dul taagan looga qaban lahaa cadowga musuqa ah oo hareeyay xafiis walba iyo luuq walba iyo xaafad walba oo xamar ka mid ah oo jidadkii guryihii aan maraynay aan mari la noo wada qodan yihiin dhulaa laga raadinaa la jidka hoostiisa ma aqaan dhulkii xildhibaan asan ajinta ku soo noqo arrinta beelihi ku harsanaa dagaaladii beelaha yaa ku dhaarsanaa dhulka kuma harsanayn